istaago waxaynu u kaalmaysan karno quraanka xifdigiisa waxaynu u kaalmaysan karnaa maanta dadku waxay ka cabanayaan xifdigii oo xumaaday ilowshii oo batay qofkii oo wahsanaya ama daalaya ama ma aragtay arrinkii jiddiyadii oo maqan adaygii iyo ma aragtay kalsoonidii badnayd walaalayaal marka koobaad ilaahay waxaan inoo weydiinayaa subxaanahu wa tacaala inuu inoo fudaydiyo khayr dhammaantii nabiga ducadiisii waxaa ka mid ah allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik waana ducadu baray macaad saxaabigii macaad la odhan jiray nabigu jeclaa saxaabadoo dhan buu jeclaa rasuulka sal ll slam nabigu wuxuu yihi waan ku jeclahay intuu dhaartay ayuu yihi macaadow waan ku jeclahay ha ka tegin salaad faral oo tukata dhammaanteed ducadan allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik runtii waxaan leeyahay qodobka koobaad waa adducaa inaan ducada badino oo nidhaahno ilaahu noogu kaalme ilaahu noo fudaydi ilaahay inaan barino ilaahay ibaryuu leehay anaa awood badane inaan ilaahay barino oon isticaado samayno wixii shar oo dhan ilaahay ka magan galno wixii khayr oo dhanna ilaahay weydiisano haddaad awooddaada aduu tala saarato oo kartidaada oo tidhaahda anu waan dadaalaya xalay 3 baan kacay barnaamijkayga qorshaan samaystay anaa iswadaya qorsho samaysan laakiin ilaahay tala saaro faidaa cazamta fatawakal cala allah qorshayso nolosha xayaatada go-aanna qaado laakiin u tala saara ilaahay arrinkaas arrin wuxuu noqon doonaa dhabooba oo run noqda haddaad laakiin ilaahay aan ilowno waxaa xaqiiqa caqabaad badan inay naga hor iman karaan marka waxaan leeyahay qodobka koobaad ducada aan badino oo wixii sharcana ilaahay magangeliyo weydiisana inuu inaga badbaadiyo shaydaan ugu horeeyo fastacid billaahi min ashayطaani الrajiim nabigeena waxaa lagu lehay sal ll slam faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashayطaani الrajiim qur'aanka markaad rabto inaad akhrido cadowga koobaad horta ilaahay ka magan kar ka ducaysa kaa ilaahay ka dayro jala jalaaluh shaydaanku ma rabo inaan qur'aanka u dhowaano inaan baranno inaan wakti gelino waayo wuxuu og yahay ummaddu hadday ummad qur'aan ama qofka qof qur'aan noqdo inuusan meel u soo maro helayn waa in marka uu ina kala dhex galo ilaahay naga ilaaliya inagiyo qur'aanka saa daraaddeed baa ilahay wuxuu leh subxana faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashayطaani الrajiim marka isticaadada inaan badino oo intuu shaydaan ugu horeeyo ee shar ah ee dhib ah ee qur-aanka inaga mashquulinaya ee internet uu ku jiro ee balaaya baas oo dhan wuxuu adeegsanayay shaydaan oo dhan ay la socdaan ilaahay inaan ka magan galno wixii khayr ana ilaahay inaan weydiisano ee inoogu kaalmaynaya horumarka iyo ma aragtay qur-aanka inaan horey ugu soconno jazaakum allah khayr qodobkaas waxaa weeye alla bariga dadkii hore ducaday aada u badin jireen wax badanna way u rumoobi jireen waayo awooddooda iskumayna hadlaynaynine dad yaa ugu xoog badan qofka ilaahay tala saarta xasbiya allahu wa nicma alwakiil tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah ilaahay bay isu dhiibi jireen wax badan baa u rumoobi jiray iyagoo imkaaniyaadka maanta aynu haysano aan haysanin qur'aanka dadkii hore dhigan jireen kuraastaasi ku fadhiyi jireen ma dabaqayay ku dhigan jireen qur'aanka masaaxiftan aynu haysanay haysteen waxaasoo dhan mayna haysan imkaaniyaadka tirada badan ee maanta haysano qur-aankii musajala ood dhegaysanayso sheekh walba codkiisa ood ku dayan karto masaaxif la haysto meelo waaweyn oo qur-aankii lagu baranayo wax badan oo tasiilaala maanta la hela haddana wax badan oon gaabinaynaa jira oo aan inoo suurtagelin oo aynu ku guulaysan la'ana maxaa kalifay ducadaa yar waxyaalaha inagu yar baa waxaa ka mid ah adducaa dadkaa horena ducada ayay badsan jireen suuratu ibraahim calayhi salaam nabi ibraahim suuradda loogu magac daray bal eeg inta uu ilaahay baryayo laba alla ka cabsigu waa inuu ziyaado qabla alqur'aan wa bacda alqur'aan waa inay noloshaadu noqoto intaadan qur'aanka bilaabanin gabadh mu'minadaad ahayd maa sha allah wanaagsan dadaalaysa
laakiin qur'aanka markaad bilaabatay barashadiisii waad ka guurtay halkii hore waxaad u guurtay inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa culimadii baad ku biirtay culimadu ilaahay qur'aankiisi wuxuu ku khasisay alla ka cabsigii culimada inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa marka culimadii baad ku biirtay culimadu waa maxay waa ilaahay oo lagu caabudo calaa basiira aqoon kitaabkii ilahay baad bilaabatay kitaabkii qur'aanka ahaa ayaad baranaysaa waa ra'su lcilmi wa bidaayat lcilmi wa nihaayat lcilmi wa fowqa kuli dii cilmin calim aqoontuba halkay ka timid waa min allah waa kalaam ullah masdaru lcilmi waa kalaam ullah marka maadaamad qur'aankii kariimka aan baranayno waa in aan ogaano inaan culimo nahay culimana cabsideennu ay ka duwanaato dadka caadiga qodobka afraad aan tilmaami lahaa waxaa weeye majaalis lkhayrka inaan badsano majaaliska suugana inaan ka fogaan ka taxadaro majaalista khayrka goob khayr iyo goob shar baa iyo dad khayr iyo dad shar camal khayri ah iyo camal shar ah hadal khayri iyo hadal shar waa isbarbar yaalaan waa ibtilaa waxaan ku dhex jirnaa addaad mutanawica wax iska soo wada horjeeda ayaa ilaahay inagu dhex abuuray waxaan leeyahay ahlu qur'aanku waa inay idinkaan idinla hadlayahay qof kastoo muslim aana hadalka uu ku socdahay caam ahaani ahlu qur'aanku waa inay noqdaan dad soocan oo meelaha laga helo la garanayo oo camalkay ku jiraan la garanayo oo hadalka ay ku hadlayaan la garanayo oo suntay oo cidday ka mid yihiin la garan karo man anta adu yaata habeenada ka mid a ayaa nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku soo baxay saxaabadiisii bar ka mida deedna wuxuu ku uhi man antum waryaa tihiin maxaad odhan lahayd hadduu nabigu saa ku yidhaha sal alla ly slam faaduma axmed baanahay soma ya ama hebel baanahay subxaana allah baashaana waa na lagu qaata dumar ree hebel aanu nahay deedna nabigu uu inala yaabi lahaba sal alla ly slam culmiya waashe laakiin saxaabadu maxay nabiga ku yidhaha sal slam man antum waxay dhahaan muslimiin baana naxnu muslimuun waa habeen ogow markaasay man anta adu yaa tahay rasuulu llahi buu nabigu uri sala allahu alay wasalam cidda aad ka tirsan tahay waa inaad taqaan anta xizb ullah adduunkan dhib baa ka jira waa la kala soocan yahay dadna xumaantay ka shaqeeyaan dadna samaantay ka shaqeeyaan dadka xumaanta ka shaqeeya xizbu shayطaan baa la yidhaha khasaarana way ku dambaynaya alaa ina xizba الshayطaani hum اlkhaasiruun dadka wanaagga iyo khayrka ka shaqeeyana waa xizb اllah alaa ina xizb اllahi hum اlmuflixuun waa inaad ciddaa ka mid qur-aankii kariimka baad gacanta ku haysa ood laabta ku sidataa ood u soo socotaa ood sii socotaa ood socod ku akhriyaysa waa inaad isu dhigto xizb ullah majaalista khayrka ficilka khayrka hadalka khayrka sadaqadda wanaagga saacad walba inaad ka shaqayso waa daruuri waxaasoo dhan waxay kugu kaalmayn alla ka cabsigaynu ka soo hadalay ayay noqonaysaa kuguna kaalmaynaysa korna waad u socon qofka bini aadamka meel ma taagna imaa inuu hoosu dego oo imaa inuu kor u baxo nabigeena ducadiisa waxaa kamid ahayd sala allahu alay wasalam ku ducaysan jiray ilaahu intaadna rafciseed kor noo qaaday kadib hoos ha noo celin waxaa fiican in kor loo socdo walalaakhiratu khayru laka min aluulaa walasawfa yucطiika rabuka fatarda walalaakhiratu khayru laka min aluulaa bu ilahi ilahay nabigiisa kula sala tan hore ta dambaa kaaga khayr badan hadday tahay xayaatada adduunka ta aakhiraa kaaga khayr badan hadday tahay maanta ta adduunka lafteeda berri baa kaaga khayr badan hadday bishan ay tahay bisha dambaa kaaga khayr badan haddii sanadkan uu yahay sanadka dambaa kaaga saaad u socoteed kor ugu socoto ayaad maalintaad ugu wanaagsan tahay ilaahay la kulmi jala jalaaluhu oo taadi ay iman dabeedna adduunyada waxaa kaaga khayr badnaanaysa
aakhira kaaga khayr badnaanaysa walaalayaal qodobka shanaad waa intaa markaad isla heshay waa dadaal daaru waxaan joognaa daaru lasbaab daartan talageliyay u baahanta cid khayr le mayna soo marin ilaa tacab baa ku dhacay tacab waa daar la shaqaysanayo waa daar khayrka iyo sharkana la doonaya in laga cararo oo lagu dadaalo sidii looga baxsan lahaa khayrkana sidii loo kasban lahaa daarul imtixaan baan fadhinaa daarul jinaan weli maynaa gaarin daartii aakhira ee jannooyinkii laakiin marka waxaa la rabaa inaan dadaal la nimaano saynu uga biyo gaari lahayn himiladeenna wanaagsana kitaabka qur'aanka inaynu xambaarno habeen iyo maalin inaynu ku fikirno qorshe u samaysano allahuma salli calaa maxamed u soo jeedno qof waxa wanaagsan oo qaali a doonaya waa safar waa qof safara waa in qofka safarka waad aragtay horey buu usii socdaa xilli qaboobaad ku socdaa gelinka dambuu caraaba fiidkiibuu goostaa oo horey u dhaqaajiyaa subxiibuu horey u kal lahaa saa ma ah qofka safarka way meel buu ku socdaa meel baynu ku soconnaa kitaabka ilaahay baynu baranaynaa jannadii baynu ku soconnaa waa in wadadaa dheer 6,236 aayad qof yidhi waan xifdiyayaa oo mutashaabihii uu ka buuxo suuradihii isu ega kaa aayadihii isu ega kaa waxa weeye hawl baa u taala marka waxaa loo baahan yahay riyaadat lisaan carabka in xoog looga shaqaysiyo tilaawada la badiyo ku noqnoqodka la badiyo juhdi badan lala yimaado laakiin kitaabka markaad halkaa ka rawaxda haddaad meel dhigto oo daadna shaydaankiina kaa mashquuliyo oo markii aad saacad ay ka dhimantay shaydaanku ku odhan maayo kitaabkaa soo qaaday uu ku ogyahay inaad qof mu'mina tahay uu ku ogyahay inaad ku hawshaysan tahay wuxuu saacadba saacadunbu dib u dhigayaa marka fastacid billaahi min ashaytaan markaad bilaabaysana ilaahay ka magan gal shaydaanka markaad dhammaysana ilaahay ka magan gal si uusan kaaga mashquulinin markan hore maxaad oga magan gelaysaa kitaabkan qur-aanka inaad isheshaan shaydaanku inuusan idin kala dhex gelin marka dambena maxaad oga magan gelaysaa inuusan kaa xarimin ama kaa hor istaagin mar labaadka ad kitaabka culays uusan kugu noqon yani shaydaanku marnaba kaama hadhayo marka mar walba ilaahay ka magan gal mar walba istaan bay ahay juhdi badan baa la rabaa in la bixiyo soomaalidu ka maahmaayeno waxay dhahan qur-aanka waxaa lagu bartaa rafazada waa imisa xaraf waa 4 xaraf rafazada ra waa rafiiq wataan iminka idiin sheegay waa dadka wanaagsan inaad badsato iyo la joogooda iyo meelaha khayrka qur-aanka haddaadan saaxiib aad wada akhrisataan ood wada qaybtaan aadan samaysanin iyo macallin aad ku dul akhrido inan yani aad qur-aanka wada diyaarisaan iyo wehel iminka intiina halkaa wada fadhiyo wehel baad isutiin waad iskaashanaysaan waad tartamaysaan waad isa soo dhawaynaysaan midba midday ka soo horreysay waad isu marinaysaan wax badan baad marka rafiiq baa le ina waddaa la marayaa qof keligii safarku waa hawl marka rafiiq fadhi zaad qofku waa inuu kaalmadii haysto qofka ajaysan cashir mari maayo dadaal qodobkaan oga jeeda waa kaa dadaal waa in lala yimaado wakti la geliyo inagu waan fiicanna qur-aanka waynu jecella alxamdulilah waynu barana laakiin ogow ilahay xaggiisu baa nalaga baraayo qorshe ma lihin bal adu waxaad ii sheegtaa xayaatadaada yawmiga ama kuu jadwal ma leeda ma lihid waxaa la rabaa qofku inuu noloshiisa ka sameeyo meel uu qur-aanka akriyo haddii laakiin ay tahay markaan haleelaan soo qaadaya cuntadaan karanaya kanaan samaynaya markaan haleelana qur-aankaan soo qaaday maya haleeliba mayse shaydaan baa inugu lamaan dad badanna saasay kaga hadheen qur-aanka barashadiisa lakin waxaa la rabaa xilli firaaqa oo aan wax ku mashquulinaya jirin inaad qur-aanka u fadhiisato oo qur-aanka qaabkaad u diyaarinaysana ay noqoto qur-aanka horo socodka ah ee cashirka ah iyo qur-aanka lasoo dhaafay labada qayboodba diyaarin buu inaga rabaa mid walbana wakti buu u baahanya
cashirka markaad soo diyaarinayso saddex arrin la kaale kow taqliid sheekh soo dhagayso codkaagaa dhismi axkaamta tajwiidka xagga akhriska iyaad ka dhismi qur-aanka akhriskiisa cashir aadan sheekh soo dhagaysanin oo quraada waaweyn ee caalamka laga yaqaanaa ha ka bixin soo dhagayso codkaaga dhismi wuu isbedeli codkaaga wuu dhismi qur-aanka waxaa lagu bartaa baa leeyahay macallin qaari ah arday qaylo dheer loox quuda qalin qaaxo weyn hooyo qalqaalo badan aabba quuri og waa maamaa soomaalida qur-aanka calaaqo weyn bay la leedahay waxaa la yidhi macallin qaari ah macallinkaaga waa inuu yahay macallin aan qur-aanka malmalaynaynin laakiin qur-aanka garanaya wixii qur-aankii kariimka ah si fiican u garanaya waana ammaano qof aan sidaa ahayn inuu dhigaba sax ma aha macallin qaari ah arday qaylo dheer ardaygu waa inuu qur-aanka iska soo jaro aan wax laxni u qarsoonaanin bismillah cod nool biyaha u kabo adoo soo diyaar garooy macallinka soo horfadhiiso laakiin aakhira haddaad qur-aan ka soo akhrido bismillahi arrahmaani rahiim alxamdulillah eesh faa'iida yani waana cudur idinku badan haddii dumar la yahay qur-aanka kariimka waxaad moodaa inaad ka xishoonaysaan akhriskiisa maya xishoodku saas maaha wixii xun baa laga xishooda arday qaylo dheer loox quuda loox weyn baa halka qur-aanka loox baa lagu dhigi jiray berigi hore soomaalida ku baran jirta loox quuda macnaha quudku waa mataqaan garanaysaa loox weyn qalin qaaxo weyn qalin ballaadhan macallinka isagoo halkaa fadhiya iyo odhanaya war xarafkaas loox ayaa leh hebel xarafkaas wuu khaldan yahay xarakadiisa ama xarafka uu kala go-an yahay ama uu isku jiraa ama waa kan loox uu halkaa macallin ku arko hooyo qalqaalo badan hooyo amba bixisa hooyo dhaxantii baa dhacaysa hurdada dib ugu celisay arday amba bixin mayso salaad subax markay tukata laakiin waa inay saddexdii kacda ama afartii oo waxdoo dhan diyaar carruurteeda ay shanta salaad subax markii laga soo baxo dibadda taagayin hooyo qalqaalo badan qofka amba bixisa imka idinkii baaba hooyooyine carruurta waa inaad amba bixisaan hooyo qalqaalo badan aabba quuri og aabba lex jeclada aan ku meeraysanin oo bishan hayskii adho tan kale akhiiran taa laga dhaafo tan kale halaga wa kala baarkin garaynay maya markaa de adduun baaba la bixin jiray xoolo nool waxaan ka wadaa taqliid waa daruuri cashirka saddexdii qodob daruuri laba tafsiir cashirkaa aad ka baxayso tafsiirkiisa soo dhageyso idinkaa wax arki doonee wax mucjiso aad arki doontaan wax mucjiso aad arki doontaan cashirka aad ka baxaysa tafsiirkiisa soo dhageyso cashirka marka la diyaarinayo qodobka koowaad maxaana taqliid soo samee qodobka labaadna tafsiir qodobka saddexaadna waa in macallin kale oon macallinkaagii ahayn aad samaysato soomaalida waxay tiraa geedweynaho macallin yaa kuu noqon karaa de xaafadaheen oo dhan xufaad baa joogta alxamdulilah soo runtay maaha xaafadaheen oo dhan yaa jooga xufaad wakti un ka samayso welibana intaadan laxniga qaybinna mar waa in lagaa dhagaysto markaad cashirka qaybtana waa in mar lagaa dhagaysto intaadan kitaabka cashirka kitaabkaad ka akhriyaysa qofka iga dhagaysaad odhanaysa haddii aad wax qalado waa inuu kuwa calaamadiyo deedna si saxa si aad ugu qaybto hadhow markaad qaybtana mar labaad buu tushi aduu ka aqri haddaad laakiin marka hore indhaha u geliso hadhow aba lagaa saxee waad ilaawiyo sidii hore eed u qaybtay buu laga yaabaa inay laanta u fakato geedyara horti geedweyne hortii geedyara laho waa in lagaa soo eego cashirka lagaa soo eego cashirka aad baad u mahadsantihiin waan dheereeyey waxaan idin ilaahay inoo weydiinaya jala jalaaluhu inuu raalli inaga noqdo kitaabkiisana inoogu kaalmeeyo dal iyo dad iyo diinna iyo dunyabana inoo xifdayo labada daaroodna inoo wanaajiyo jazaakum allah khayr